السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو عشر كيني صدحات كورسكا جرافيك ديساينكا oo idila socodsiinaya anigoo ah Casiir Aadan. Casharkeena saddexaad waxaan ku dhigan doonaa insha Allah sidee ayaa loogu shubtaa computerkaaga Adobe Photoshop adigoo markaasi ku shubanaya versionka 2020. insha Allah waxaan tagi doonaa Adobe Photoshop halkuu yaalay. Aniga halkuu Adobe Photoshop yaalay waa tan. marka aad la soo degto aad kala soo degto website-ka la yiraahdo Get into PC waxaad tagi doontaa insha Allah tabtan ayuu kuugu soo degi doonaa. waa haddii uu WinRAR computerkaaga kuugu jiro, haddii kale sidan ka noqon maayo. marka haddii aan WinRAR computerkaaga kuugu jirin waxa iyaduna khasab kugu ah inaad markaasi WinRAR computerkaaga kusoo dejiso. WinRAR-kuna waa kan, waa wax aan gaadhin ama waa software yar oo aan gaadhin waxaan ka badnayn 6 MB. aad buu u fudud yahay. kadib markaad saa ugu install garaysaba qaabkan ayay noqonayaan dhammaan wixii WinRAR ahaa oo dhan. WinRAR kan sababaha looga dhigo waxa weeye software-iska markaad la soo degayso looga soo dhiga waxa weeye number 1 inaanay kala lumin fayliska software-kan uu ka kooban yahay. number 2 inaanu virus markaasi gelin oo waxa weeye aanu faylalka qaar delete garayn markuu virus galo waxyaabahaas oo dhan. number 3 waxa kamid ah isaguna size-kii software-ka in lagu yareeyo. marka insha Allah waa inaad WinRAR computerka kula soo degtaa, haddii kale ku furmi maayo markaad soo degto. haddii ku furmi waayo qaybka ku noqon waayo waxaa khasab ah inaad markaasi WinRAR la soo degto. marka WinRAR hadda ka hadli maayo. waxaan sameynayaa insha Allah inaan sameeyo oo aan horta WinRAR kan ka saaro. kadib markuu saa igu soo dego iminka ka soo qaad waan la soo degay way diyaarsan yahay. waxaan rabaa inaan computerkayga gudihiisa ku shubo ku install gareeyo. waxaan sameynayaa qaabkaas ayaa waxa weeye right click ku leeyahay oo WinRAR-ka ayaan ka saari doonaa. kadib waxaan leeyahay extract files, kadibna okay ayaan leeyahay. isla halkan ayuu waxa weeye folder lagaga dhigi doonaa. marka computerka kuma install garayn karo ilaa aan WinRAR-ka ka saaro. kadib marka aan ka saaro uu noqdo waxa weeye folder-kan oo kale lagu shubo uu noqdo mid folder-ka ku wada jira ayaan fayliskiisii furaya. kadib qaybtii setup-ka ayaan computerkayga ku install garaynayaa si by step ayaan insha Allah sula soconaynaa haddii alla ka dhigo oo aan ku tusaya insha Allah. waxaan sugaynaa inta yar soconaysa insha Allah. inta yar marka ay dhamaato kadib waa inoogu dhici doontaa insha Allah ta'ala. hadda wuu inoo dhamaaday. wada jeedaa inuu inoo dhamaaday. kadib waxa laga dhigay file-kan. markii horena wuxuu ahaa WinRAR. kadib ama buugaagta yar saaran ayuu ahaa. kadib waxaan tagi doonaa fayliska ayaan tagi doonaa. waxaan ka sii tagi doonaa kan ayaan ka sii guda geli doonaa. kadib waxa inoo soo bixi doontaa qaybtan ayaa inoo soo bixi doontaa. haddii aan yar ballaariyo halkan ka yar ballaariyo fayliskan ayuu ka kooban yahay qaybta package-ka loo yaqaano product iyo resource-ga. marka saddexda inagu ma socono. waxaan u baahanahay maadaama aynu computerkeena rabno inaynu ku install garayno inaynu qaybtan setup-ka tagno. kaasaynu laba jeer waxaan leeyahay right click odhanaynaa. kadibna waxaan leenahay run administer. kadibna yes ayaan leeyahay. miyaad rabtaa inaad software-kan ku shubto? yes ayaan leeyahay. wax yar ka bacdi uu inoo soo kacayaa qaabkan buu yar wareegayaa. kadibna laba step kaliya ayaan sameynaynaa. step 1 oo ah install, waxaan leeyahay continue. step 1 oo ah continue. kadibna sidaasi time-ka yar ayaan sugi doonaa insha Allah intuu inoogu dhamaanaya halkaasi tiradaasi ay boqolkiiba boqol noqonayso ayaynu sugi doonaa insha Allah. isla markaa wuxuu inoo soo qori doonaa fariin yar ama qoraal yar oo inoogu sheegaya in computerkiina lagu shubay software-kii Adobe Photoshop 2020 si complete ah. wada aragtay minka hadda way inoogu dhamaaday sida warqadan yar ama message-kan yar inoo sheegayana si complete ah ayaa loogu shubay computerkeena oo loogu duubay software-ka Adobe Photoshop 2020. intaa ka bacdi close ayaan leenahay. wixiiba waa ka wada noqonaynaa. waxaan tagi doonaa oo aynu ka heli doonaa halkan insha Allah. bartan ayuu inoo soo geli doonaa oo kan software-kii Adobe Photoshop 2020. kadib sidaas ayaynu ugu dhufan doonaa insha Allah
oo software-kii inoogu soo kacayaa isagoo wax cilada lahayn. intaa ka bacdi insha allah casharka ayaa daawan doontaa casharka uu ku xiga adigoo daawanaya isla markaasna graphic design-kii ku sameynaya insha allah. sidaas ayuu soo kacayaa. wax la abuuray uu ku leeyahay 1990kii 2020kiina waa la soo saaray tan 30 sano oo boora ayaa u dhaxeeyay oo software-kan jiray. intaana waxa lagu waday developing ayaa lagu waday ama wax weeye horumarin ayaa lagu sameynayay iyadoo marba ka dambaysa version cusub oo kii wax yar ka duwan la soo saarayay. 2021 way jirtaa laakiin checking-ka ayaan la soo marin oo cilado fara badan ayuu yeeshay. dad fara badan ayaa feedback ka celiyay markaas ciladu leeyahay 2021ku laakiin 2020ka ka soo baxay isagoo aan wax cilada lahayn oo aad u fudud ayaa wax weeye la soo saara. tabtan ayuu ku soo baxayaa markaad waqti yar sugto. tabtan ayuu ku soo baxayaa ujeeda wax yar ka bacdi waxa weeye la soo dhigayaa taaqad cad. kadib markuu ku soo kaco tabtan ayuu kugu soo baxayaa. marka designskan meelahan yaala aniga waa designiska aan ku design garan jiray oo wixii recent loo yaqaan ayaa meeshaasi soo gali doona. wixii recent loo yaqaanay ayaa meeshan soo gali doona ee aad design gareynaysay. marka insha allah hadhow markaad rabto inaad soo furato warqad waxaad tagaysaa create kadibna okay baad leedahay. waa kan casharka xiga ayaan kaga hadli doonaa seesaska iyo sida warqada loo gaaminayo inaad warqad A4 soo furatid inaad board soo furatid waxyaabahaas oo dhan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.